jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn. Iiraan ayaa howlgelisay nidaam cusub oo difaaca cirka ah oo lagu soo riday diyaaradihii Mareykanka sida xarunta looga taliya ciidamada ee Khatim al-Anbiya laga sheegay. Afhayeen u hadlay taliska guud ee ciidamada ayaa sheegay in Iiraan ay si huban gacanta ugu hayso dhammaan hawada sare ee wadanka Iiraan sida warbaahinta maxalliga loo sheegay. intaan la ridin diyaaradda Mareykanka, Trump iyo wasiirkiisa dagaalka Hagitz ayaa labadaba ku andacoonaya in ay hawada wadanka Iiraan ayagu gacanta ku hayaan. Trump ayaa Iiraan u sheegay haddii ay ku furweyso marinka Hormuz muddo 48 saacadood ah oo sidoo hadalku u dhigay in cadaab uu ku furi doono wadanka Iiraan. Trump ayaa ku celiyay dalabkiisa ahaa in Iiraan ay marinka Hormuz furto, wuxuuna qabtay waqti kama dambayso 48 saacadood ah. waxaan xusuusinayaa uu bartiisa ku qoray 10 maalmood ayaan idiin qabtay inaad heshiis ku gaartaan ama aad ku furtaan marinka Hormuz, ayaa bartiisa bulshada ku qoray. waqtigii hadda waa dhamaanaya 48 saacadood unbaa ka haray buu leeyahay inta cadaab aan idinku furi doono, waa sidoo hadalku dhigay. Trump ayaa mar walba ku hanjabaya in uu goobaha shidaalka iyo kaabayaasha korontada duqeyn doono halka uu ka raadinayo xiriir diblomaasiyadeed ee dagaalka ugu soo afjarayo. warar hadda ka soo dhacay Iiraanna, mas-uul sare oo ka tirsan Iiraan ayaa waxa uu leeyahay madaxweyne Trump waxa uu meedaamka dagaalka ku qaadi waayey ayuu wuxuu rabaa inuu hanjabaad ku meel mariyo. ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa u mahad celiyay laba qabiil oo ka tirsan qabaa'ilka dega wadanka Iiraan. waxa ayna sheegeen in ay soo rideen laba diyaaradood oo nooca helicopterka ah oo Black Hawk la yiraahdo. raadiyaha Israa'iil ayaa ku waramaya in deegaanada waqooyiga Haifa iyo Jaliisha sare iyo galbeedka Jaliil in duqeyn xoog leh ay ku socoto ay ku qaadayaan Iiraan iyo Xisbullah, halka janalka 15aad ee Israa'iilna uu ku waramayo in gantaalada Iiraan laga soo riday ee waqooyiga mid ka mid ah laga hortagay, halka gantaal kalena uu meel banaana ku dhacay. Ruushka ayaa cambaareyn xoog leh u soo jeediyey duqeynta Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen xarunta lagu taageeray nukleerka ee Basheher maanta galinkii hore, wuxuuna ugu baaqay weerarkaasi lagu weeraray kaabaha nukleerka in si degdeg ah lagu joojiyo. wuxuuna si weyn u cambaareeyay in ay fal shar ah tahay in dad lagu dilo goob nukleer ah, sida ay sheegtay gabadha afhayeenka u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. duqeynta goobaha taageerinta nukleerka Iiraan oo ay ku jirto xarunta Peshawar ee korontada laga dhaliyo waxaa waajib ah in si degdeg ah oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku joojiyaan, ayay ku soo gabagabaysay hadalkeeda. Ruushka ayaa shirkadda ama hay-adda u xilsaaran nukleerka ee Rosatom la yiraahdo ayaa bilowday inay 198 shaqaalaha Ruushka ka bixiso xaruntaasi Beshara inta aanu weerar ka dhicin ka hor. madaxweynaha wadanka Turkiga Tayyip Erdogan ayaa u sheegay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte in dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iiraan uu abuuray waxa uu ku tilmaamay xaalad la ismari la'yahay oo adag, wuxuuna ku baaqay in beesha caalamka ay ku dadaasho sidii dagaalkaasi loo soo afjar lahaa. bayaankan oo ay baafisay wasaaradda warfaafinta ee wadanka Turkiga ayaa Erdogan iyo Rutte waxay ka wada xaajoodeen arrimaha gobolka iyo waxa socda iyo NATO xiriirka ay la leedahay arrimahani oo ay telefoonka uga wada hadleen. Erdogan ayaa sheegay NATO siday u taageertay wadanka Turkiga nidaamkiisa difaaca intii uu dagaalkani socday waxay muujinaysaa in xulafada iskaashigeeda uu yahay mid xoogan awoodna leh. wuxuu sidoo kale sheegay Turkiga inuu sii wada doono dadaalka uu ku raadinayo
xal nabadeed sidii loogu gaari lahaa dagaalka kale ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Muxsin Rizaaye oo ah mas-uul sare oo ka tirsan Iiraan ayaa tilmaamaya in Trump ay waajib ahayd in shaqada laga eriyo halka generaalada uu shaqada ka eriyey laga eriyey. Ogayaha dagaalka ee wadanka Mareykanka Pete Hegseth ayaa shaqada ka eriyey ilaa iyo 12 generaal oo uu ka mid yahay madaxa ciidamada ama abaanduulka gudoomiyaha abaanduulka ee ciidamada qalabka sida ee wadanka Mareykanka. Weerarka Israa'iil iyo Mareykanka oo ay ku duqeeyeen in ka badan 30 jaamacadood oo ku yaala meelo kala duwan oo Iiraan ku yaala ilaa iyo intii dagaalka u bilowday dabeeqadii February ayaa wasaaradda sayniska ee wadanka Iiraan waxa ay ku sheegaysaa in duqeyntaasi ka dhanka ah hay'adaha sayniska iyo cilmi baarista ay xadgudub tahay. ilaa iyo 30 jaamacadood ayaa si toosa Mareykanku u beegsaday ayuu leeyahay Xuseen Saami Saraf oo u waramayay warfideennada isagoo booqanayay jaamacad jimcihii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeeyeen. waxa uu sheegay Israa'iil inay beegsanayso goobaha cilmi baarista iyo goobaha sayniska ee barnaamijka nukliyeerka ee wadanka Iiraan iyo barnaamijyada kale ee hubka. waa hagaag maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah ee degdega ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ha yeeshe aynu ku hakanno qadar xayeysiina. Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku howlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyey soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay. waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela, warshadda hilibka looda, warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafa-bixinta hilibka. waxaana ka howlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyey soona maray baaritaanno caafimaad. Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika, Khaliijka. dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub. waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Xalaal Certificate iyo ISO Certificate. shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah. haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shashada kaaga muuqda. dugsiga casriga ah Al-Xufaad Online waxaad ka baran kartaa xifdiga Qur'aanka Kariimka, higaada, luqadda Carabiga, culumta shareecada iyo waliba tarbiyadda awlaadda. adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hab casri ah online ah. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal. wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed aan ku bilowno qodobka la xiriira hanjabaadda Trump. in ka yar 48 saac ayaa ka dhiman waqtigii uu qabtay sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka. laakiin albaabada naarta uu sheegay oo soo furaya si hadalku u dhigay maxay tahay waxa Iiraan u laaban. Iiraan taliska dhexe ciidanka Mareykanka waxay sheegeen in lagu riday 850 gantaalada Tomahawk ah. waxaa lagu weeraray diyaaradaha B52 wax walba oo diyaarada oo dagaal F-16, F-22, F-35 waxaasoo dhan waa lagu weeraray. marka maxay tahay waxa u dhiman Iiraan uu leeyahay cadaabtii waa soo degaysa. dadka khabiirada arrimahan u darasay waxay leeyihiin wuxuu si dadban ugu hanjabayaa nuclear, laakiin qaar kale ayaa waxay leeyihiin kuma dhaco inuu dagaal nuclear bilaabo sababtoo ah Mareykanka asagaa si gardaraa dagaalkan u bilaabay. Iiraanna hataa haddii uu gantaalo nuclear ku dhufto uma badna inay isdhiibayso marka la fiiriyo taariikhda adkaysiga iyo sida ay isu abaabushay. waxaan kaloo ayadana meesha ka maqnayn madaxweynaha Mareykanka dhowr goor oo hore ayuu ballanqaadi u qabtay ay shaqeyn waayeen. ninkii lahaa dadka magaalada Tehran ku yaala gacmaha madaxa saartaan dagaalkii 12 maalmood ha lugeeyaan ka baxaan magaalada. ninkii lahaa waxaan Xamaas hadday isdhiibi weyso waxaan gubayaa maxaan ku iraadaa dhammaan marinka Gaza. madaxweynaha Mareykanka in dagaalkan uu ku culus yahay waxa marqaati ka ah xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo militarigiisa ayaa isku dhaxaysan. waxaa shaqada laga saaray 12 generaal oo ka mid yahay abaanduulihii ciidamada Mareykanka. maxaa la isku qabsaday? dagaal luga Iiraan kuma geli karno. Iiraan sida moodaysi iyo qaabka moodaysi maaha. Iiraan maaha wadan adduunyada saddexaad
iiraan waxay leedahay ciidan aad u xoog badan iyo hub maxalli oo ayada samaysatay oo tiknolojiyada anaga aan ku dagaalamayno iyo qaabka aan u dagaalamayno aanan waxba looga qaadi karayn. caqiidada dagaalka maraykanka waxay ku salaysnayd waxaa lagu yidhaahdo shock and awe oo macnaheedu yahay sas iyo burbur ballaaran inuu maraykan geysto. iiraan intaa waa loo geystay waana kasoo kabatay. waxay kaloo caqiidada maraykanka ku salaysan tahay inay hoggaanka disho waddankan isku dhex yaaco ama sidii ciraaq oo kale ka dhacday, laakiin waa shaqayn weyday. waxaa muuqata marka sida hadda uu aafayeen mas-uul sare oo iiraani uu hadalka u dhigay, Trump wixii meedaanka dagaalka uu ku waayey ayuu wuxuu rabaa inuu handadaad ku meel mariyo. iiraan iyo maraykanka dagaalkooda uma muuqato sida ay khabirada hadalka u dhigayaan. madaxweynahan hadda maraykanka u taliya Trump inuu noqon doono cidda xataa ka qaybgelaysa heshiisdii iiraan lala gelayo. iiraan hore ayay u sheegtay dowladda uu Trump madaxda ka yahay iyo mas-uuliyiintiisa in aynan wax wada hadal la gelaynin, sababtoo ah 2 goor oo ay wada hadal kula jiraan ayaa la khiyaamay. wixii markaas ka dambeeyana waxa weeye sumcaddooda waxa weeye dabeesha ayay raacday. hanjabaadiisa cid wax ku qaadanaysa lama arko. waxaa hoosta laga xariiqayo oo wax laga dhageysanayo waxa weeye sida uu u dhigayo nin lafaguro weyn ah. shacabka maraykanka waxay dhegeysanayaan iiraan wararka ay soo saarayso, sababtoo ah madaxweynaha maraykanka iyo maamulkiisa xaqiiqada oo dhan dadka ayay ka qarinayaan. haddana waxaa muuqata in sawirro ay baraha bulshada yaacayaan diyaaradaha maraykanka laga gubayo iyo culayska dagaalka maraykanka uu ku hayo iyo diyaaradihii uu ku faanayey oo wax ka qaadi lahaa waddanka iiraan marka laga gudbo in weeraro isdaba jooga oo hub fara badan uu maraykanku ku duqeeyey iiraan. sidaasay tahay wuxuu dalbanayaa xabad joojin, waxaana la tuunsan yahay in hubkii uu meelaha geeyey oo dhan ay ka dhammaadeen. uu rabo in uu hub badan soo gurto, laakiin iiraan warkaasi waa diiday. waxaana muuqata dagaalkani maraykanku inuu siriq qoorta gashtay. waa gartay. haddaynu dul istaagno warkan ka soo yeeray taliska howlgallada khaatimul anbiyaa oo ay leeyihiin nidaamyo difaac oo cusub ayaynu howlgelinay, ma wax dibadda ogeyd baa la aaminsan yahay inay yihiin, ha noqoto shiinaha ama ruushka, mase waa wax ayaga isku tashadeen iiraaniyiinta? maxaa arrintaasi laga socdaalin karaa? toddobaadkii hore ayaa waxaa soo disay warar sheegaya in iiraan ay agab military ka helayso, iyo gaar ahaan xagga nidaamka difaaca cirka. waddanka ruushka oo ay heshay nidaamka difaaca cirka S-500 la yidhaahdo ee ah kan ugu casrisan. diyaaradaha shabaxa lagu tilmaamo ama diyaaradaha raadaarka dhuunta ee maraykanka hadda sawirro ayaa ka soo baxaya oo ay shaacinayaan iiraan oo muujinaya diyaaraddii uu maraykanku dhihi jiray raadaarada ma arkaan, ayadoo raadaarku uu arkayo oo la tooganayo. waxaana muuqata iiraan hadday war soo saarto, warka ay soo saarto waa xaqiiqo. sawirkaa hadda kuu muuqda waxaa soo saaray waddanka iiraan. waxa ay ku jirtaa shishki ayay ku jirtaa, waana muuqataa diyaaraddii lalahaa waxay ka dhuumanaysaa nidaamka raadarada. maraykanka dagaalka uu ku jiro hadda dagaal la mid a taariikhdiisa ma arag. khabirada qaarna waxay leeyihiin agabka militariga ee maraykanku uu wato waa agabkii qarnigii 20aad. uma muuqato inuu ku cabsi gelin karo waddanka iiraan. iiraan iyadoo gurigeeda joogta ayay gantaalku waxay gelinaysaa meesha ugu talagasho oo gobolka bariga dhexe xeryaha militariga ka mid ah. waxaana la isku raacay oo lafagurayaasha maraykanka oo dhan isku raaceen, gaar ahaan kuwa arrimaha militariga mutaqasis ku ah, in dhammaan saldhigyadii militariga ee gobolka bariga dhexe ku lahaa in ay dambas yihiin oo aanan la isticmaali karaynin. intaa waxaa dheer in raadaaradii iyo agabkii kale ee satalaydada ku xirnaa ee lagu basaasayey duqeynta iyo la socoshada waddanka iiraan iyo diyaaradihii awakiska ahaa ee ka qayb qaadanayay in lagu kormeero gantaalada, waxaasoo dhan in la burburiyey.
waxa weeye Israa'iil iyo Maraykanka waxa ay marti u yihiin sida hadalka loo dhigay duqeynta waddanka Iiraan sababtoo ah hore 5,000 oo kilomitir ayay indho iyo dhega ku lahaayeen oo wax walba arki jireen ciidankii saa ahaan jiray ayaa hadda waxa uu marayaa gacan ku gubasho. waa gartay waaya dhanka siyaasadda aynu ka eegno shalay waxaa la filayey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu codayn qabto waxaa soo diyaarisay Bahrain oo sanadkan haysa bisha wareegga ah ee madaxweynaha golaha ammaanka laakiin waxaa la yiri dib baa loo dhigay maanta la codayn lahaa haddana dib baa loo dhigay waxaa cabsi laga qabaa Shiinaha iyo Ruushka weliba si gaar ah Shiinaha ayaa loo sheegayaa ma la oran karaa markaasi haddii masraxii dagaalkana Maraykanka lagaga adkaaday sida muuqata hadda xilligan la joogo oo diyaaradihiisa la soo riday Iiraanna ay taagan tahay oo aan la loodin dhankii diblomaasiyaddana hadda iyo masraxyadii golaha ammaanka in asaga laftigiisa lagu biyo keenay. su-aashaas waa su-aal aad u fiican. Maraykanka qaraarkii ugu dambeeyay golaha ammaanka la isku raacay xiisad dagaal Hussein wuxuu ahaa kii lagu ansixiyey qodobkii 20 qodob ee lagu nabadeynayay marinka Gaza. wax ka soo naas cadaadana ma jirto bal wuxuu u isticmaalay in uu ka dhigo hay'ad inuu ka babra abuuro golaha ammaanka qaramada midoobay. Maraykanka golaha ammaanka qaramada midoobay saaxiibadii uu ku lahaa gaar ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay sida Britain iyo Faransiiska xataa iskuma hadlayn karo. waddankan Bahrain la yiraahdo sida la fuqarayaasha ay qaar u dhigayaan uu ka mid yahay Professor Meshamer waddanka Bahrain waa mustacmarad buu leeyahay Maraykanku uu degan yahay qaraarka ay Bahrain meesha geynayso ma aha mid ayada ka yimid ma waa mid meelo kale ka yimid waxay taaba golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar kasta oo yimaada oo ka dhana waddanka Iiraan waxaa hortaagan codka diidmada qeexan. Maraykanka waxa kaliya u furan waxa weeye dagaalkan ka dhanka ah xeerarkii qaramada midoobay iyo axdiga qaramada midoobay asaga bilaabay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay uma keeni kartid oo aad yareysanaysa hay'adahooda in aad rabto in lagu caawiyo ma ka yeelayaan. wadamadan gacanka ee saldhigyada militariga ku lahaa Professor Sachs ayaa waxa uu yiri isagoo soo xiganaya nin xogeeya arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka aan jiray Kissinger la yiraahdo buuggiisa inaad Maraykanka saaxiib la noqoto caafimaadkaaga uma fiicna inaad cadow u noqotona waa kasii daranta. wadamadan saaxiibka la ah Maraykanka ee gacanka ku yaala waxa weeye khibrad fiican ayay heleen oo ah in amnigooda oo Maraykanku aan ducoonay inuu difaaciyo inay hadda khatar ku jiro waxaana muuqata golaha ammaanka ee qaramada midoobay shirarkiisa inayna ka soo bixi doonin wax qaraar ah oo ka dhana waddanka Iiraan oo lagu taageerayo Maraykanka iyo Israa'iil. way dhinaca kale hadaynu eegno Maxamed waxaa isna hadlay nin khabiir ah oo arrimahan ka hadlaya gaar ahaan xaaladda inay ka dari karto muxuu sheegayaa khabiirkani? Chris Doyle oo madax ka ah ama agaasimo ka ah golaha Carabta iyo Britain ee isfahamkooda ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha laga soo riday waddanka Maraykanka markii ugu horeysay dagaalkan inay tahay arrin muujinaysa in Iiraan ay sumcad weyn yeelanayso marka ay timaado inay u babac dhigtay Maraykanka muujinaysana caalamkana u muujinaysa in Iiraan dawlad sheeganaysa inay awood weyn leedahay ama quwad weyn tahay in diyaaradeeda saacirka looga soo daadiyo muddo badanna diyaaradahani adduunka lagu iimaalayay in ay muujinayso Iiraan inay diyaar u tahay dagaal military oo hab la isku kaashanayo iyo dagaal xirfadeed oo ayada gurigeeda joogta meesha rabta gobolka duqeyn karto. haddii aad dib ugu noqotid 5 ilaa 6 toddobaad ee la soo dhaafay
madaxweynaha Mareykanka waxay leeyahay dagaalkan asaga iyo xulafadiisa inay soo afjari karaan ayagoo aanan wax kaalmo helin. Hadda laakiin waxaa muuqata in madaxweynaha Mareykanku uu qaaji taagan yahay oo uu rabi lahaa xulafo inuu helo. waxayna u muuqataa aqalka cad ee Mareykanka inuu isku dhex daadsan yahay marka la fiiriyo dagaalkan. waxayna muujinaysaa marka aad fiirisid sida uu u dhaqmayo madaxweynaha Mareykanka iyo xogayihiisa dagaalka ee Hagedis ee generaalada shaqada laga erinayo in Mareykanka dhexdiisa hoggaankiisa iska dhexyaac badan uu ka dhex jiro, muujinaysana dagaalka xaaladda dhabta ee ka jirta inaad si dadban u arkayso. Doyle ayaa waxaa ku doodayaa waxa lagu arkayo Mareykanka ee la xiriira dagaalkan gobolka Bariga Dhexe ayaa waxa uu abuurayaa cabsi weyn oo ah in hadafyadii uu Mareykanku hore u sheegay inaan la meel marin karin. waxaana dhab loo arkayaa in howlgalkii Mareykanka uu si nuxuusayo markii uu dagaalka bilaabanayay wixii uu Mareykanka sheeganayay oo ah xukuumadda Iiraan in la bedelayo, inay muhiim tahay in la bedelo. hadda waxaa muuqata hoggaankii wadanka Mareykanka ee wadanka Iiraan in Trump iyo saaxiibadiisa ay arkayaan in aynan muuqanin si loo bedeli karo xukuumaddaasi. waxaana muuqata howlgalka military ee Mareykanku uu wado in uu u muuqdo in Iiraan hadda ay meedaanka dagaalka ayada maareynayso, iskuna dayayso hadafyada ay leedahay inay gaarto. waxaana laga yaabaa inuu dagaalka sii dardargalo, colaadana ay ballaarato, wixii haddaan aragnay wax ka weyn inay dhacaan, gaar ahaan duqeynta Israa'iil ku socota ee aan kala joogsiga lahayn. iyadoo dowladda Mareykanku aynan hadda arrintaani gacanta ku dhigin, sumcadda caalamka ay dowladda Mareykanku leedahay ayaa aad hoos ugu dhacaya. waxaana lagu nuxnuxsanayaa ma aha keliya diyaarada inay ka dhaceen Mareykanka ee khasaaraha Mareykanka ee lacageeda gaaraya. diyaaradda F-15 la yiraahdo ma aha diyaarad raqiis ah, 100 milyan qiimaheeda diyaarada gaaraya in la burburiyo waxa weeye Mareykanka xanuun weyn bay ku tahay. waa gartay waay maxamed, dhinac kale aan ka eegno colaadan warbixintan hadda waxaa ku jirta 30 jaamacadood in lagu burburiyey dagaalka oo socda 36 maalmood. macnaheedu waxay tahay ugu yaraan maalintii 3 jaamacadood in la burburinayay. jaamacadihii ugu dambeeyay la burburiyey waxaa ka mid ah tan gabdhaha qaaska u ah oo magaalada Tehraan ku taala. Mareykanku wuxuu sheeganayay inuu dadka Iiraaniyiinta xoreynayo oo uu meesha ka saarayo nimankan wadaadada ah ee kacanka hogaaminaya. laakiin dadka Mareykanka dadka Iiraaniyiinta loo hayo xorriyad iyo dimuqraadiyad. laakiin markii la beegsado kaabayaashii korontada, kuwii biyaha, warshadihii, jaamacadihii, madaxafyadii, goobihii taariikhda, wadooyinkii, buundooyinkii, macaaro Mareykanka uu ka qabamayaa iyo Israa'iil ka qabaan dadkii Iiraaniyiinta inay soo bixi waayeen oo wadooyinka u soo bixi waayeen oo ay markaasi ka soo horjeestaan nidaamka waddanka ka jira. taa beddelkeedii in dadkii la ciqaabo. ileen waddan markaad jaamacadihiisa burburinaysid macnaheedu waxa weeye dhaxalkiisii iyo taariikhdiisii iyo waxbarashadiisii mustaqbalkiisii oo burburinaysaa. arrinta dadka Iiraaniyiinta sidee u arkayaan? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. aqoonta iyo Iiraan waa la isku xiriiriyaa. bulshooyinka caalamka ku nool Iiraaniyiintu waxay ku jiraan dadka u heelan waxbarashada ama u jajaban. Mareykanka iyo Iiraan hadda ka hor ayaan ka hadalnay aqoonta oo barnaamijyo badan kaga hadalnay. meesha Iiraan sanadkii lasoo dhaafay ay soo saartay 200,000 oo engineer, 50,000 oo ka mid ah dumar ayay ahaayeen. dacaayadaha qaar ay dowladda Iiraan fidinayso oo goobaha hubka nuclearka lagu sameeyo, injineerada hubka wax ka dhisaya dumar ayaa ka mid ah. Iiraan maxadiyada waaweyn ee wadamada reer galbeedka ku yaala, saynisyahanada waaweyn ee ka shaqeeya, dadka ugu culculus waxaa ka mid ah khubarada Iiraan wax ku soo baratay. Iiraan iyo aqoonta lama kala saaro. xataa waxaa jira xadiis laga soo xigtay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam
oo ka hadlaya dadka Iiraaniyiinta iyo aqoontooda. waxaa muuqata marka Maraykanka iyo reer galbeedka wixii ay sheegan jireen ee la xiriiray xuquuq aadane iyo ilaalinta xeerarka dagaalka iyo waxaas oo dhan dirshada ay ka baxeen. meeshan Iiraan haddii buunda biyo iyo haddii iskool laga dumiyo waxay ka mid yihiin dadka soo alifay magaaleynta iyo dhisidda hay-adaha ama muasasaadka dowladda. dib ayay u dhisayaan waxan, laakiin sida uu nin khabiir oo Iiraani hadalka u dhigay, waxaa burburay buu leeyahay akhlaaqiyaadkii Maraykanka iyo reer galbeedka ay sheegan jireen. tan kale Maraykanka wax allaaliya wixii waraa ka soo baxa layskuma hadlayn karo, oo ah sida hadalka loo dhigayo dadkiisa ayuu marin habaabinayaa. dagaalkana khabiirada dhan waxay isku raacsan yihiin inuu hal dhinac u janjeertay, hal dhinac inuu u jeedo, oo ah Maraykanka waxa uu rabo inuuna meel marin karaynin, uu qabatimay wadamo aan diyaarad lahayn, nidaam difaac aan lahayn, burburintooda Afghanistan, Ciraaq, oo xataa lacag la isticmaalay, Libya, Iiraan waxaa la yidhi waa qaab kale iyo waddan kale. Iiraan dagaalkan ay Maraykanka kula jirto waxaa leeyahay Maraykanka waxyaabaha ay hadda ka fikirayaan iyo cadaabkan uu ka hadlayo madaxweynaha Maraykanka